بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan wadnaa taxanaha aan uga hadli doono magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo aan sharaxaad faahfaahsan magacyada Ilaahay ka bixin doono. waxaan wadnaa inaan ka hormarino casharo aan u bixinay casharo horodhac ah si hadhow ay dhuuxid iyo faham iyo weelan badan aan u helo marka aan guda galno sharaxaadda magacyada Ilaahay. cashirkan waxaan uga hadli doonaa waxaan u bixinay qofka bini aadamka ah xiriirka uu la leeyahay xuska Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo Ilaahay baryadiisa. waayo ummadda Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ummad la rabo loo abuuray loo sameeyay inay noqoto ummadda dunida ugu ummadihii soo maray oo dhan ummadda ugu sharafta badan ugu karaamada badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. sida darteed culimadu waxay sheegeen axaadiis badanna ku soo aroortay in cibaadada asaasiyaadkeeda ama saldhigyadeedu ay ka mid tahay baryada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. الدعاء مخ العبادة. waxay kaloo culimadu sheegeen maqaamaadka ay leedahay cibaadadu kuwa ugu sareeya inay ka mid yihiin baryada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayagoo dhinacyo kala duwan ka eegay. dhinacyada ay ka eegeen waxaa ka mid ah quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka laga reebo ducada wax kasta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam looga baahdo nabiga la weydiinayay Ilaahay baa quraan soo dejinayay. ilaahayna wuxuu oranayay waxaad siisaa jawaabtaas. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. meeshaas culimada waxay ku sheegeen marka inay jirto wax u dhaxeeya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ah oo la leeyahay dadka u sheeg ilaahayna uu quraankiisa ku soo dejinayo. laakiin marka ay timaaday bay yiraahdeen culimadu ilaahay baryadiisa waa laga saaray qul waxayna noqotay wax qofka iyo ilaahay si toos ah xiriir uga dhaxeeyo. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. culimadu marka waxay yiraahdeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala markii sida ilaahay loo baryo uu ka jawaabayay wuxuu dhahay وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. marka ereyga cibaadi waa sharfid adoomadiisa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu sharfayo oo ku sifeynay inay asaga adoomadiisa yihiin. wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu wa ta'ala isticmaalay fa innii qariib ma uu soo oranin adoomadeedu waa ii dhow yihiin wuxuu yiri adoomadeeda aniga u dhow. waxaa kaloo culimadu aad uga hadleen qofku marka uu qalbigiisa waxaan ilaahay ahayn uu ka saaro oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaligiis uu qalbigiisa geliyo markaas waaye marka uu dareemayo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala u soo dhawaaday oo asaga ilaahayna aysan cidina u dhaxaynin. sida darteed waxyaabaha uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadda nabi maxamed ku sharfay ku karaameeyay waxaa ka mid ah inay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ayagu toos u baryaan ilaahayna uu u qiray inay adoomadiisa yihiin ayna u soo dhawaadeen. ummadii reer bani Israa'iil oo ka mid ahayd ummadihii ilaahay uu markii hore karaameeyay oo fadliyay wa inni faddaltukum ala alaalamiin wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min alaalamiin. marka ilaahay u baahdaan waxay oran jireen qaalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. sidaas oo kale ummadii nabi ciise ilaa xawaariyiintii naxnu ansaarullaahi dhahayay marka ilaahay u baahdaan inay baryaan nabi ciise u imaanayeen waxay oranayeen hal yastatiicu rabbuka an yunzila calayna maa'idatan min as-samaa. markaasaa nabi ciise ilaahay u baryay oo ducadii uu ilaahay u weydiinayay. laakiin ummadda nabi maxamed meeshaan dhexe waa laga saaray qof kasta oo muslima oo ummadda nabi maxamed ka tirsan wuxuu helay inuu ilaahay toos asaga wax u weydiisan karo. was'alullaaha min fadli ud'uuni astajib lakum. sida darteed ducadu waa shay loo furay inaad adiga awood u yeelato inaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala si toos ah u baryi karto si toos ah u tuugi karto ilaahayna isla markiiba uu ku siinayo jawaab. walidaalika culimadu waxay yiraahdaan ducada markaad ilaahay ka barido oo wax weydiisato saddex shay baad helaysaa midkood. marka koowaad inuu ilaahay ducadii wixii aad weydiisatay wax ka khayr badan kugu bedelo, ama haddii ilaahay sida uu koonka iyo sunanta dunida uu aasaasay oo qadihiisu ku dhacay haddii ay waafaqsan tahay ducadaasna in lagu siiyo, haddii kalena in deganaasho xasilooni maskaxdaada iyo qalbigaaga aad ducada laftigeeda aad ka hesho. laakiin waxay yiraahdeen qofka waxaa laga rabaa markuu ilaahay baryayo ilaahay uma baryootamaysid ama luqadaadu inaysan noqonin baa la rabaa sidii inaad ilaahay wargelinayso ama sidii ilaahay inaad duruuftaada u sheegayso. waxaa la rabaa inaad u ekaato luqad baryootan ah oo isjilcin ah oo isdullayn ah
وأقولاشا إنه إلهي سبحانه وتعالى أساق وحكسين دونه سيدا درتيد وإنا إلهي كبر إذا مقعيدي سكال الدوان حضبا متك أدوبا هنتها إنا إلهي أقبر إذا وإكمتها الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الله يعني مقع كستو إلهي سبحانه وتعالى أوليها إنا تكبر إذا سيدا درتيد مقع الاسم الله الأعظم أذيقا وحا لغاربا إنا الحي القيوم استعماشو أذيقا لغاربا ذو الجلال والإكرام إنا استعماشو حضو والبمقع أدوبا هنتها إلهي سبحانه وتعالى إنا إسلاذا كانوا كاقا أجيبيا إنا تكون عشته سيدا درتيد قفك مسلم كاوحا للربا مركات إلهي بريسو واد إلهي إسودي بيسو إنا تكهر مريسو حصوص هذا إنه إلهي قلبي يسو وصوغلو sida ilaahay lagu xusaa jirkaaga oo dhan ba ilaahay inuu xusaa laga rabaa indhuhu waxay wax ku xusaan inay ilmeeyaan oo ilaahay dartiisa ay u ilmeeyaan dhaguhu waxay wax ku xusaan inay wax dhageystaan oo wax khayr la ay dhageystaan carabku wuxuu ilaahay ku xusaa inuu ilaahay u mahadnaqo ilaahay inuu amaano gacmahaaga waxay ilaahay ku xusaayaan inaad wax ku dhiibto inaad wax ku bixiso oo wax khayr ay gacmahaagu sameeyaan lugahaaguna waa inay u dadaalaan cibaadada ku dadaalaan khayr ku dadaalaan ummadda anfaceeda ku dadaalaan qalbigaagana waa inay laba shay gashaa cabsida ilaahay iyo rajada aad ilaahay ka qabto oo mar taasoo ka dhalanaysa marka adiga oo dhan inaad noqoto qof xus ilaahay oo mar walba ku nool quraanka marka u fiirsato afar shay oo waxa jirta oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku tilmaamay akbar wax weyn inay yihiin waxaa ka mid ah dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka daa'imaya alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim ilaahay subxaanahu wa tacaala dikriga wuxuu siiyey afar shay oo u gaar ah mid waxaa weeye inay joogtayn leedahay alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim wuxuu kaloo ilaahay siiyey dikrigu inuu yahay xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala inay tahay wax la weyneeyo wala dikrullaahi akbar wuxuu kaloo ilaahay siiyey markaad adiga ilaahay xasuusato asagan inuu ku xasuusanayo uu ku leeyahay xasuuso annagu ku xasuusanayo tadkuruuni adkurkum waxay kaloo leedahay inaad badiso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu amaanay wadhaakiriina allaha kathiiran wadhaakiraat waxay kaloo culimadu yiraahdaan ilaahay afar shayba wuxuu ku magacaabay inay yihiin afar shay oo waaweyn mid waxa weeye jannada انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا مد اللباد وحوين إلهي يكون شيء وحواي عذابته والعياذ بالله ولا عذاب الآخرة أكبر مد سد هذا إلهي وكل شيء وحوين نيه وحواي إنه إلهي رالي كان نقضه رنتينا وحوين إلهي رالي كان نقضه ورضوان من الله أكبر شيء أفراد إلهي وحوين كل شيء وحواي حسك إلهي ولذكر الله أكبر سيدا درتد إلهي سبحانه وتعالى وجعل يهي قفك بني آدم كأي وأبوري إن أفكيسا إيا حسوستيسو مرول بأي كجران سيدا درتد ددك علمضها وإلهي كحران وإلهي هذا عارفين وإلهي آدو يقانو قاركود وحلقات سو وريا هذا الآدي آدو قيمة بدن آدو عجيب بدن لكن مركه هرعات كان حيسو من علمضها اسكمدها وحلويري أديك إلهي محوير إلهي أنيقا ما بحسوستو marka hadaad maqasho ilaahay ma xasuusto waxa laga yaabaa inaad aad u naxdo maxaa dhacay markii la yirina wuxuu yiri aniga ilaahay maba ilaababa marka macnaheedu waxay tahay inaadan marka horeba xusuustaadu hadaysan ilaahay kaba bixin oo mar walba aad ilaahay ku xiran tahay mar walba aad ilaahay xasuusan tahay waxaad helaysaa jidkii wanaagsanaa oo aad magacyada ilaahayna qalbigaaga ugu dagi lahaayeen magacyada ilaahayna aad wax ku xusi lahayd oo aad ku wardin lahayd ilaahayna aad ku bari lahayd wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaykum.